بسم الله الرحمن الرحيم إن وأنا سلام الدمان أصحابها هالكم كحرم المقامة أنا صاحبها نهاية كل هذا ولكن إن الدوام عبد الرحمن حسين حريد أو مقامة يكمل دنيا رضا إن تيان كخاصة كوكا جدي إن أبيني سلام يا دمانتين حنكون سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن سلام كدب ولا ليال إن حن هالكم متقنين ما أنت أن رحمين أنو kasoo jeedino baaqiyo iyo baahiyo iyo xaaladaha jira iyo mataqaanaa xukuumadda iyo waxqabadka iyo maxalliga jiray taageerada mid guud ahaaneed iyo mid gaar ahaaneed ee xisbiga BB ka guday ahaan ka shabeel ahaan iyo ka deegaan ahaan iyo xaalado badan oo rabnay halka mataqaanaa maanta aan ka iftiimino dhamaantiin marka soo dhawaada aad iyo aad mataqaanaa salaamaya barnaamijkeenu asaas noqon doona insha Allah si guud marka la yiraahdo waxyaabaha ugu muhiimsan ama mataqaanaa la rabo in laga hadlo waxa weeyaan xaalado badan oo mataqaanaa isku wada murugsan baa jirtay bal halkan waxa igu diyaar laptopkii anigoo xogteedii iyo maxalli jiray iyo qorshayaasha jira raba inaan mataqaanaa halkan aad gidiin oo dhan idin kula wadaago soo dhawaada marka gidiin oo salaamaya salaan kadib mudanayaal كو waxaan ka hadlayaa aan rabaa inaan ka hadlo xaaladda guud ee gobolka Shabeelle magaalada Guday iyo dhismaha dhagax dhigga dhismaha terminalka cusub ee garoonka ee magaalada Guday kaasoo uu shalayto oo xariga ka tarin oo dhagax dhigay madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Umar ugu horreyn ka dhalinyaro ahaan ama ka shacab ahaan reer Guday hadii aan nahay waan soo dhaweynaynaa qorshihii shalay dhagax dhigga shalay garoonka ee uu dhagax dhigay madaxweynaha waxaan rajaynaynaa inaan mataqaanaa aanu u noqdo mid midho dhala oo looga faa'iideysto sida ahayd ummadana mataqaanaa wax u qabta adeegii looga baahnaana fuliya midda labaad waxaan rabaa inaan halka ka sheego oon rabaa inaan u sheego annagu ka guday ahaan ama ka shabeelle ahaan ama ka deegaanka ahaan mar walba waxaanu taageersanahay cidda horumarka ummadda mataqaanaa kow ka ahee dadka horumarnaysan oo taageersanahay taasoo ah maxay ahayd taasoo ah midda dadka wax u qabanaysa midda dadka wax u qabanaysa ee maxalli jiray ummadda wax u qabanaysa ee maxalli jiray taageerada 1 iyo 2 iyo 3 ba waxaynaysa waan kol walba anagu nahay waxaanu kol walba xisbigi dadka kii wax u qabanaya baan nahay inta kadib mar raba inaan qodobo badan ka sii hadlo waxaan doonayaa inaan ka sii hadlo mataqaanaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda jira ee caqabadaha ah ama xaaladaha jira ee xaqiiqda ah ee la isku sheegay ma doonaynaa inaan isku tataabano qodobka labaad ee raba inaan halka mataqaanaa warbixintayda aan ka soo jeedinayo waxa weeyaan wad ogtihiin ka guday ahaan ama shabeel ahaan hadba xukuumadda imaata ama xisbiga yimaada wuxuu u yahay isha kaliya ee mar walba ay dadku ay mataqaanaa dhax ku hayaan hadii horumar noqoto hadii ay maamul cusub noqoto hadii ay mataqaanaa dhinac walba noqoto waxa la dhigi jiray mar walba barta ugu muhiimsan ee wax qabad marka laga hadlayo awayaan dhul beereedkii uu leeyahay dhab khayraadka dabiiciga ah kala duwanaa uu leeyahay shidaalkii uu leeyahay waxyaabo badan oo mataqaanaa gobolada kale ee islaamka gobolku dheeryahay alxamdulillah rabbil caalamiin maxaa la jiray gobolkuna mar walba wuxuu u taagan yahay wadanta guud ee deegaanka wixii Shabeelle dan u ah waa qorraxay doona wixii qorraxay doona baa jiya doona hase yeeshee caqabado badan oo xagga mataqaanaa xaaladaha jira oo rabnaa maanta aanu runta isku sheegno iyo doonaya halkeen aan ka soo jeediyay baa jira inta ka bacdi alxamdulillah rabbil caalamiin isbedel badan baa jira oo intuu madaxweyne Mustafa imaaday ka guday ahaan iyo ka gobolka Shabeelle ahaan ba isbedel badan baa jira oo maxalli jiray soo kordhay waana mid aan Ilaahay ugu mahadnaqayno oo mataqaanaa xukuumadda jirta aan leenahay aad way dadaashay oo mahadsan tahay waana mid aan leenahay wali wax baa ka sii dhimane halkii la reebay lama gaadhin hal sii gaarsi aan leenahay weeyaan isbedeladana waxa kamid ah 1 iyo 2 iyo 3 hadii aan soo qaato tusaalahan hadda magaalada Guday oo kale hadii aan soo qaato laamiye badan baa magaalada laga hirgeliyay maxalli jiray laamiye badan baa rabaa in mataqaanaa magaalada in dhulkii la qoday oo shirkadihii qaadanayay mataqaanaa ay hawshu wadaan laamiyadaasna wax soo kordhay weeyaan alxamdulillah rabbil caalamiin garoonka oo kaleeto uu shalay madaxweynuhu dhagax dhigay wax soo kordhay weeyaan aad baan mataqaanaa yaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana jecelahay waana waxaan rajaynaynaa miraad layli airport inuu noqdo mid
ummadda anfaco mataqaanaa dhismihiisana dhaqso lagu degdego oo san noqonin dhagax dhigyadii horeeto oo kale oo san noqonin mid durba dhagax dhigiisu u dhamaado inuu noqdaan rajeynaa taana waa mid mataqaanaa aan shalayba aan lahayn oo aan xaq u lahayn ka goday ahaan markii la yiraahdo baahiyaha naga maqnaa meena kamid tahay waxyaabaha mataqaanaa aasaaska oo waxa kamid ah 1 iyo 2 iyo 3 markii dhigi karo waxyaabaha ay dadku inta badan ku taamayaan waxa weeyaan hadda tusaale ahaan goday oo kaleeto ama gobolka Shabeelle oo kale markii la yiraahdo dhalinyarada deegaanka ay wax baratay meelaha ugu muhiimsan ay ka soo baxeen waa goday waa kuliyada beeraha ee goday oo aad ogeydeen mataqaanaa xilliga la dhisay iyadoon kuleejka deegaanka ku olin kuliyada beeraha ardayda jigjiga iyo ka imaato Shiniile ay ku soo xaroon jirtay iska daa goboladan kaleeto ee dhow kuwa jigjiga iyo ka yimaadaan ay ku soo xaroon jireen inta ka bacdi waxa jirta mataqaanaa oo kaleeto aan rabaa in halka ku daro goday maanta waxay xaq u lahayd inay hesho jaamacado bixiya filiyada kala duwan ama culunta kala duwan bixiya iyo goday xaq u lahayd kaliya maanta haddii aan helay ilaahay mahadi garoon laakiin wali waxaan ku sii taaminaa in dadka iyaga wax bartay si aqoonta loo sii kordhiyo oo ay aqoonta hore u socoto oo mataqaanaa dadku ay wax u sii bartaan oo dadku ay noqdaan dadku ay u noqdaan dad maxaa la dhihi jiray ay u noqdaan dad waxbarashadoodu dhisan tahay oo wax walba mataqaanaa nadiif ka ah waa in jaamacado loo sameeyo magaalada waxa ugu muhiimsan ee ka hadlaynay baahida waxa weeyaan jaamacad mudane madaxweyne waxa aan ka codsanay ee hadda aan kuleenahay waxa weeyaan goday ama Shabeelle jaamacad bay u baahan tahay mudane madaxweyne goday college way leedahay oo college-kii ugu horeeyay beeraha goday baa laga sameeyay laakiin madaxweyne ardaydii kuliyada ka baxday wali jaamacaday u baahan yihiin kuwa dambe jaamacado u baahan baaqana oo ku soo direynaa ka dhalinyar ahaan iyo maxalli jiray ka ahaan ka goday ahaan iyo ka Shabeelle ahaan jaamacad baan kaga baahanahay jaamacadana waa mid aan mataqaanay rabno inaan mudday ay ku soo biirto jaamacadaha deegaanka ee labada ka jira jaamacadda jigjiga iyo mid qabri daar inay insha Allah saddexaadna ay goday noqoto rajeynaa in badanna baahida waan kala hadalay waana aad iyo aad garabna waan ku nahay waan ku taageersanay madaxweyne xaqiiqada markaan soo sheegnay iyada oo wax qabadka xukuumaddaadu uu yar yahay marka goday loo fiiriyo oo waliba halkii aan ka filanayay aysan ahayn haddana madaxweyne waxaan ku leenahay sida goday lagaga taageersan yahay wallahi dheexbur iyo awaarada u la taageersano annagu qalbi nadiif aan ku haynaa waan ku jeclahay waan ku soo dhaweynaa madaxweyne marba mataqaanaa garab kaga nahay haddana annagu xuquuqdanada aan helaan ku leenahay si waliba dastuuri oo nidaam dastuurka waafaqsan aanu mataqaanaa helaan ku leenahay mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay oo aan kugu boorinayaa waan ku leeyahay madaxweyne jaamacad baan u baahanahay jaamacadii koow aan helo inta kadib madaxweyne aad baad u mahadsan tahay sida aad mar walba baahida bulshada iyo matxalli jiray caqabadaha jira dadka wala wadaagto anaga ka guday ahaana si qalbi ah oo nadiif oo aad wanaagsan baan ku jecelahay inaan kula shaqeynaa diyaar baan u nahay ka dhalinyar ahaan iyo ka maamul ahaan cid walba iyo garab bay ku tahay waxa kale mataqaanaa madaxweyne jiray aan rabay inaan maanta mataqaanaa warbixintayda halkan aan ku soo diyaariyay aan rabay inaan mataqaanaa aan kula waxa jira waxa weeyaan mudane madaxweyne ee ka hirdeegan ku saabsan mudane madaxweyne waxa jira saami qaybsi loo qaybsaday beelaha Soomaaliyeed Soomaali markii la yiraahdo waa ummadda deegaanka degto dhammaan gobolada iyo degmooyinka saami qaybsi baa la sameeyay haddaba saami qaybsiga sida ahaa beesha degta goday mataqaanaa degta dadka la yiraahdo waliba tulumoga dulmi badan oo mataqaanaa ay ka tabanayaan baa jirta saami qaybsi markii la yiraahdo xukuumadda madaxweyne wax lagu qaybiyaa markii laga imaado kursiga madaxweynaha oo deecidii markaa mataqaanaa loo soo magacaabay madaxweyne ku xigeenka ilaa iyo golaha wasiirada madaxweyne aad iyo aad baan mataqaanaa halka ugu dulmanahay oo aad iyo aad boqolkiiba boqol madaxweyne markii la yiraahdo hadii qabiiliyan la yiraahdo iyo hadii dhul la yiraahdaba aad baa dulmi badan baa ka jira halka waxa aan lahayn annaga aan islahayn hadii dhul wax lagu qaybsado iyo hadii qabiil wax lagu qaybsado ka beel ahaan wixii aan lahayn ma helo mana hayno hadii la yiraahdo dhul ogtahay dhulku uu mataqaanaa beeshu degto waad ka waraysaa waad taqaanaa lagu sheegi maayo aqoon labaatay dhul hadii la yiraahdo waa ku dulmanahay hadii la yiraahdo magac iyo qabiiliin iyo beel ahaan hadii la yiraahdana iyadna ku dulmanahay runtii markaan soo sheegno waxba mataqaanaa dadku Soomaali baan wadanahay oo Soomaalidana sidooduba in wax la soo sheego wax fiican weeyaan waan ku dulmanahay hadii la yiraahdo ka talomogi ahaan aad iyo aad baan mataqaanaa halkaas xabashooyin badan baa ka muujinayna golaha wasiirada horta waan ku dulmanahay wasiir ku xigeen halka iska daayayna sidoo kale mataqaanaa aad iyo aad baan ugu hooseynaa xaqaanagi iyo xuquuqdanadii aan ku lahayn xukuumadda iyo maxalli jiray xisbiga kama hayno tiishada jirtay marka loo fiiriyay iyo mid maanta jirta way kala duwan yihiin oo xaqiiqada markaan soo sheegno tiishada iyo tii maanta isku midna ma aha oo mataqaanaa way ka aad u kala fogin hase yeeshee marka loo fiiriyo hadda jirta xitaa marka loo fiiriyo aad iyo aad mataqaanaa baahi badan iyo caqabado badan iyo mataqaanaa waxyaabo badan oo tirsan jirta
inta ka bacdi waxaan rabaa mataqaanaa aan ku leeyahay waxaa ku xigay intaas agaasimo waxaan u malayn agaasin markii la yiraahdo hadii la yiraahdo dadka cunno saf sheegtay guday iyo mataqaanaa dadka qabiilkan tolmugaal la yiraahdo agaasimada guud ee jiray mataqaanaa aan eega aan leenahay aan tirsanayno waxaan u malayn 3 miya mise 4 mise 2 saas weeyaan xaqiiqda markaan soo sheegno 4 kama dhaafayso kor 4 uma dhaafayso agaasimada guud ee aan deegaan ku leenahay taasina ma aha hadii mataqaanaa mid cadaalad ama aha waa mid aan wax tabanayno oo mid aan mataqaanaa dhab hoo jirto weeyaan ummadaha nala midka ah ama mataqaanaa dadka aan isku heerka taaganahay hadii wax lagu qaybsanayo beel iyo magac lagu qaybsanayo waan ka hooseynaa saamiga hadii maxalli jiray lagu qaybsanayo dhul iyo deegaan iyo saamiga waan ka hooseynaa aad iyo aad baan uga hooseynaa ka bilow wasiir ku xigeen ilaa agaasin inta waan ka hooseynaa madaxweyne taana waxaan rajaynayaa inuu baaqayo uu soo gaari doono adiga xukuumadda mataqaanaa wax ka qaban doontaan oo dhalinyarada wax baratay waxaan aaminsanahay hadii la yiraahdo in la heli maanta waxaan u malayn aqoonyahan hadii la yiraahdo runta markaas u sheegno aqoonyahan markii la yiraahdo ama yaa wax bartay iska daa degree master iyo PhD markii la yiraahdo macnaha kuwa deegaanka dadka ugu badan ee dadka goday u leeshiyihiin ban aaminsanahay hadii xitaa la sameeyo mataqaanaa la sameeyo baaritaan la ogaado taasna waxa weeyaan dadka saas ee xaaladaas jirta iyadna caabashadu waxa weeyaan dadka iyaga wax bartay ee wada jaamiciinta in looga faa'iideeyo mataqaanaa boosaska u qalmaan la geeyo boosaska u qalmaan kule waxa weeyaan in macnaha agaasimiga deegaanka in agaasimo ku xigeenada deegaanka in xafiisyada deegaanka ee mataqaanaa waaweynaa in laga shaqeeyo dhalinyarada reer guday ama kabeeliyan dadkan tolmugaha ah inta kadib waxba kuma hayna halka ayadana mataqaanaa xaalad badan baa ka jirto oo waa aad baan mataqaanaa ugu hooseynaa taana waxaan rajaynaynaa adiga xukuumaddaadaba inay wax ka qaban doonto aadna wada maasan tahay waxaan waliba aad u rajaynayaa aad iyo aad waliba waxaan u rajaynayaa inaad baaqayaga iyo markuu soo gaarnaa wax ka qaban doonto waliba aad dib wax u fiirin doonto waxaa kaloo rabaa inaan mataqaanaa aan rabo inaan ka hadlo oo rabaa inaan waliba ku sii socdo qodobadan qaybo ka mid ah mataqaanaa aan rabo inaan ku soconaya madaxweyne iyo dadka shacabka ee daawanaya goday markii la yiraahdo waa bu'da isha deegaanka weeyaan dhinac walba ay noqoto hadii ay dhaqaale noqoto hadii ay wax soo saar noqoto hadii ay horumar noqoto hadii ay dhinac walba ay noqoto goday markii la yiraahdo waa dadka ugu muhiimsan ee mataqaanaa waa goobta ugu muhiimsan ama shabeelle markii la yiraahdo hase yeeshee baahidii sida ahayd xaaladaas iyo caqabadaas iyo jirtay in la xalliyo oo dadka aan xaqayaga iyo xuquuqdii aan lahayn nidaam dastuuri waliba ku helo annagoo xukuumadana taageersan xisbigana taageersan maxalli jiray qodobadaas waa kuwa loo baahan yahay mar walba in la hirgeliyo oo aanu xukuumadda iyo xisbiga u soo jeesanayno madaxweyne deegaanka markii la yiraahdo dhalinyarada reer goday way ku dulmayeen waan ku dulmanahay mee waliba aad iyo aad baan mataqaanaa dhulkan dadka qabiiliyankeena la midka way naga fara badan yihiin dadka maxalli jiray taana aqoon la'aan haysa ma ahay waa macnaha garbation iyo nidaam macnaha naloo sameeyay oo la leeyahay mataqaanaa target gaar ah oo nala saaray weyn xaqiiqda markaan soo sheegnay mataqaanaa dhabta ka hadalweyn xukuumadii shalay jirtay baan degoday dhalinyaradeedii iyo mataqaanaa waxeeda oo dhanba ya mataqaanaa ya aan caqabad ahayd tamaanta jirta mataqaanaa caqabado badan iyo xaalado badan mataqaanaa oo ka hadalkoodii iyo maxalli jiray xaaladahooda jirtaba in loo sheego mudan maxay ahaydey walba mataqaanaa jirtaba in wax loo sheego oo xaqiiqda loo soo bandhigo wax fiican weeyaan waliba waxaan rajaynayaa in mataqaanaa muuqaalka inaad waliba inay dadkan aad sii share gareysaan dhamaan dadka ay daawanaya asxaabta halkan daawanaysa si ay u gaadho dhamaan cid ay khusayso in baahida iyadu aan u raadsanayno si nidaam dastuuriyan oo sharci waafaqsan sii share gareeya muuqaalka idinkoo maasan oo mataqaanaa kuna share gareeya page-ka ka xukuumadda haday noqoto iyo ka haday noqoto dhamaan page-ka weyn ku share gareeya muuqaalka idinkoo maasan wali hadii aan sii socono mataqaanaa oo aanu caqabadaha goday ka jiray mataqaanaa ama dadka goday degan haysta waxa kamid ah waxaa jirta saami qaybsi heer gobol baa jirta saami qaybsi heer degmo baa jirta hadii aan tusaale u soo qaadano saami qaybsiyada degmooyinka ka jira waxaa kamid ah degmo qabiil walbaba ama qoys walbaba halka uu dego ama mataqaanaa ay ka soo jeedaan dadka halka jooga saami qaybsi dadka wax jooga waa loo qaybiyaa wax saami qaybsi baa jira qabiil ahaan ama ka dhul ahaan saami qaybsiga haddaan ka soo bilaabo geeska u sheegay haddaan ka soo bilaabo qalaaf oo kaleeto tusaale ahaan degmada qalaaf oo kaleeto haddii aan ka soo bilaabo dadka tolmugaha qalaafa degan way ku dulman yihiin xaqooda kama helaan oo intaasoo qabale ilaa maxaa dhihi jiray ilaa 30 qabale 15 qabale 20 qabale waxay inta ku leeyihiin xaq iyo xuquuqiyin toona lagama helo waxaan u malaynayaa qalaafa markii la yiraahdo sidii hore loo qaybiyana khalad bay ahayd
haddii xaqiiqda oo sharciga la maro oo mataqaanaa nidaam sharci waafaqsan sameeyo aad baan ugu dulmannahay dadka halkaa degay mataqaanaa way aad bay mataqaanaa ugu dulman yihiin aad bay mataqaanaa xaqooda kama helaan waliba iyagoo dadka halkaa degay mataqaanaa tulmugaha ay majority yihiin halkaa jooga maxaa dhihi jiray waxaan rabaa mataqaanaa marka ka soo bilow halkaas waxaa la yidhi laba xafiis bay leeyihiin baa la yidhi ilaahay baan ku dhaariyay inta artay dhul abaa iyo halkaa ku yaallay ma laba xafiis keliya ma wax qabata ma aha haddii anagu mataqaanaa qabiiliyan shalay naloo eryanayay mataqaanaa nidaamka naloo eryanayay maanta waxaan doonaynaa in cadaalad aan helo oo nidaam sharci cadaalad helo xisbiga waan taageersannahay xukuumadda waan taageersannahay ka madaxweyne mustafa waan ku taageersannahay garabkaagaan nahay insha allahu xilli badan baad mataqaanaa sii raagi doonto xilka sii doontaa madaxweyne waxaan kaa codsanaa inaad mataqaanaa inaad xaqaanagii aad meel noo saarto oo aad ka dhalinyar ahaan iyo ka bulsho ahaanba aad waxnoo waxayso taana waa mid aan mataqaanaa codsi adigii iyo xisbigaagaba aan kuusoo jeedinayno waxaa kaloo la dhihi jiray aan ku soconno markii la yidhahda cadaadle oo kaleeto degmada cadaadle ummad badan baa degta waa la wada degaa dad badan oo soomaaliyeed baa wada dega oo mataqaanaa la waxaysan yahay heshiis hadda kor waxaa jiray degmadu haddii mataqaanaa ay laba xildhibaan baa ka soo baxda cadaadle oo heer deegaan u matasha iyo guddoomiye laba qabiil ba degta qabiilka la yidhaahdo culyaanka mataqaanaa siiba nimanka reer wafta la yidhahdo ilmaadeertan halka dega iyo dadkan kaleete tolmugaha ama cabdallahaba waxaa loo heshiisyo waxaa jiray ahaa in degmadii guddoomiye heshaa qabiilka guddoomiye hela qoys reerka hela inay labada xildhibaan ay banaanka maraan baa jirta sii mataqaanaa marka ma aha mid muuqata taana waxaan doonaynaa mataqaanaa heshiisyada in lagu daro oo la ansixiyo la yidhaahdo heshiisyada la ansixiyo oo la yidhaahdo maxay ahayd heshiisyada la ansixiyo oo laga midho dhaliyo oo wixii jira la isu sheego xaqiiqda dhulka waa la wada degaa nin walba meeshuu degay in mataqaanaa xaquuq uu ku helo way fiican tahay ma rabno inaan wax dulmino ma rabno in la dulminaya ma rabno waxaa kaleetoo jirta waxaa jirta mataqaanaa qabaliyo ku yaala gobolka Nogbeed khaasatan degmada Ceelweyne oo ay leeyihiin mataqaanaa qabiilka la yiraahdo dadka la yiraahdo tulmugaha ay lahaayeen goobtiyada xilli waxaa jirta mataqaanaa wiil madax xabseeda oo jooga hadda mataqaanaa loo magacaabay baa jirtay wiilkii mataqaanaa waa ka ogeydina meeshii uu ku noolaa waay mataqaanaa dadkii ay nidaam loo adeegsaday qabiiliin iyo wax saas ah wiilkii meeshii mataqaanaa uu la qabsan waxaan waayay halkaas iyada qudhigeeda mataqaanaa maadaama uu dhul naga jiro oo waxaynu xildhibaano inaan ku yeelano oo naga soo baxaan waa wax waajib weyn Ceelweyne Nogob maadaama qabiilyaal ku leenahay inaan ka helo xuquuqdanadii oo xildhibaan shalay tawaad ogeydeen goday waxa ka soo baxayso mataqaanaa xukuumadda shalay jirtay ayaan maxamed sheekh aadan baa xildhibaan ahayd oo goday laga soo dooranay hal qabalana kuma laha waxaan u malay mataqaanaa inay wax ay ku leeyihiin inay wax kooban tahay hase yeeshee iyadoo awood la adeegsanaya goday waxa ka soo baxday gabadh Ceelweyne ah yaa goday mataqaanaa xildhibaan looga dhigay xog iyo mataqaanaa qasab iyadoo loo marayo waxa weeyaan kuwii aan ku lahayna waan kala anahay kuwa aan waxba ku lahayna mataqaanaa waa loo sameeyay shalayto marka waxaan leenahay annagu ma rabno meel aan lahayn mataqaanaa inaan wax ka helo ma rabno meesha aan leenahay laakiin aan xuquuqana ka helo oo baahannahay saami qaybsiga wixii gooban naga jira laaslanka roo kaleeto wixii aan ku leenahay waa inaan ka helo dhanaan oo kale wixii aan ku leenahay waa inaan ka helo Ceelweyne waxaan ku leenahay waa inaan ka helo qalaafo kaleeto wixii caqabadaha jira halka ka jira waa in la xalliyo waxay ahayday cadaadle oo kaleeto iyana waa mataqaanaa saami qaybsiga qomaati loo saxo mataqaanaa haddii nimanka walaaladana ay isbursi wadaana ay isbursiga laga soo celiyo haddii annaga isbursi wadaana nalaga celiyo dadku waa walaalo mataqaanaa waa loo dhashay waa ehel baa leeyahay waa la isku dhex maran yahay laakiin in wax la isku qabo in wax la isku sheego fiican waxaan halkan fariintan marnaa waxa weeyaan in macnaha dadku la isku caafimaado mataqaanaa la isku bogsanaado weyn ka xisbi ahaan waa inay mataqaanaa arrimahaas xal laga gaaro waxa kale oo jirta intaasoo aan sheegayba waa wax dhab ah xaqiiqo oo jirto weeyaan waana la ogaan karaa xaqiiqdan waa la ogaan karaa cid walba mataqaanaa baahi caqabad ka jirtana maxay ahayday inay wixii jira ay soo sheegato ay soo bandhigato waa wax meesha muhiim ah ku jirto weeyaan baaqan marka ka dhalinyaro ahaan baan mataqaanaa rabnaa inaan mataqaanaa aan kumad u gaarsiino annaga ka xisbi ahaan iyo ka maxay ahayday shacab ahaan iyo ka dhammaan giddiga iyaga waan garab baan u nahay xukuumadda waana garab taagannahay waana mar walba mataqaanaa xisbiga talada haya goday waxay caan ku tahay oo lagu yaqaan xisbiga talada haya marka mataqaanaa taageero tahay madaxweyne Mustafa waxaan aaminsanahay inaad isbedel badan keentay iyagana aad keeni doonto hase yeeshee caqabadaha jira inaad wax ka qaban baan aad iyo aad boqolkiiba boqol yaan u rajeynayaa waxa kale ka mid ah mataqaanaa aan rabo waxa weeyaan
maadaama uu xilli doorashadii lagu dhow yahay goobaha xisbigana uu la tartamaya xisbiyaha fara badan oo nalif oo kaleeto xisbiga UDFP oo kaleeto xisbiga nabad iyo cadaalad oo kaleeto goday dadka ay iyadu dooranayso way garanaysaa goday dadka wax u qabanaya way garanaysaa goday dadka wax u amar walba way garanaysaa goday waxa wax u ah kaliya mar walbaba cidii wax u tarta goday wuxuu ah goday waxa wax u ah cidii wax u qabanayso goday waxa wax u ah cidii ah waad arkaysi maalmaha baraha bulshada shalayto iyo maxay ahayd maanta iyo darrada waxa ku jirtay inta badan dhalinyarada reer goday kuwa qurbaha jooga iyo kuwa dibadda jooga waxyaabaha ay xukuumadda uga hambaliyeen waxa kamid ah madaxweyne haddii aad hal jaamacad noo sameyn lahayd magaalada dhanba waxaan ugu magacdar lahayn Mustafa Cagjar inta badan dadku waxay soo qoriyeen taas ahayd runtii markaas sheegno waad arkaysiina baraha bulshada Axmed Cabdiwiis oo kaleeto Axmed Deeq oo kaleeto dhamaan qurba joogta goday oo kale Khadar Layli oo kaleeto raasi sulub oo kaleeto dhammaan asxaabta dal iyo dibadda inta joogtaba way soo qoriyeen cid walba waxay lahayd mataqaanaydi goday oo ugu magacdarnaa bay lahayd taana wax dhab oo wax jira weyn in maanta magaaladii goday magaca goday lahayd lagu magacdaro Mustafa Cagjar Mustafa Maxamed Cumar lagu magacdaro oo waxaad mutaysato weyn iska maadan keensanin marka runta markaan xaqiiqda ka hadlaynana inta aad sheegtaba waa wax lagu amaanayo jirto weeyaan wixii kale ee dhiman inaad dhameystirtaan rajaynaa madaxweyne adiga iyo xukuumaddaadaba waxa ugu muhiimsan ee aan ka waxaynana waxa weeyaan in aan helno xaqan nagaga maqan kililka deegaanka xuquuqda nagaga maqan in wasiiradana loo kordhiyo in wasiir ku-xigeenada loo kordhiyo in maxaa dhici jiray agaasimadana xaqan aan helno ma haysanne in agaasimo ku-xigeenada aan helno in waaxaha deegaanka ku xafsida deegaanka koobiyin inaan ka dhex muuqano ka goday ahaan waranagu xisbiga waa xisbiga yagi Mustafa waa madaxweynahanagi goday meesha si Mustafa looga taageersan yahay calaaqashada soo cadahay buu cadayn loo taageersan yahay garab iyo gacal loo yahay waanu garab taagan asaga iyo xisbigiisaba iyo xukuumadda talada haysaba laakiin waxa aan ka codsanay madaxweynaha waxa weeyaan madaxweyne kaliya waxaan ka codsanay inaad xuquuqdii dhalinyarada goday ee deegaanka inaad meel matqaanay la waxeeyo oo la helo oo maxay ahayd xuquuqdii matqaanay iyo baahidii la helo waxa ugu muhiimsan ee jirtana waxa weeyaan ugu xaaladda ugu muhiimsan ee jirta waxa weeyaan in kol walbaba aan ku laaday in kol walbaba wixii say xaaladdu u jiraan iyo la isku waxeeyo la isku warramo hadnagu kii kalba wax noo taray xisbiga wax noo qabto baanaha in baa xukuumadda wuxuu yiri hooyada maxay ahayd ani kalba kii hooyada qaba aabahayni iyo lindhiij marka ay waxa weeyaan anagu goday hadii aan nahay xisbiga wax noo qabtan baa xisbina Mustafa ee gaada talada haya adiga madaxweynaha deegaanka ah adiga goday dhum soo fiirnaysa adiga numar walba ku naanagu oo mataqaanay adiga madaxweynaha noo ah muuqaalkana hala sii shargaray oo bijijkana hala lagu shargarayo maxay ahayd horeyna loo sii wado oo muuqaalku waa inuu gaaro ilaa bijij badan lagu waxeeyo oo dadka sii shargarayaan sii faafiya asxaabta dhamaan halkan ay la socoto kulligiin waan salaamaya waxa aan ka hadlaynana waxa weeyaan waa wax jirto oo mataqaanay oo taagan weeyaan ka maamulahan hadii la yiraahdana goday maamulka jooga aad iyo aad boqolkiiba boqol dhalinyaro fiican baa joogta dhalinyaro wax qabad niman mas'uuliyiin jooga habeen dhawtaa waxa jirtay guri baa ka gubtay halkan qodobaha dadkii birmadka ah ninkii ugu horeeyay aan meesha ugu tagay ee mataqaanay dadkii baan kamid ah ugu tagay wuxuu hoggaanka nabadgelyada ee maamulka magaalada goday Yuusuf Cabdullaahi oo taagan halkii sigi juka ilaahay baa iga sareeyay shalayna ninkii joogay wada geedin mataqaanay maanta dad waxa jooga mataqaanay aan dhalinyaro ah Yuusuf oo kaleeto hoggaanka aad buu naasiyay waa nin wax qabad leh waa nin aan intaan ku arkay aad wanaagsan waa nin bulshada jecel inuu soo dhaweeyo Yuusuf aad buu naasiyay hoggaanku maamulka hadda jooga inuu fiican weeyaan inay wax badan ay isbedel badan keenayaan hadii la shaqeeyaan aaminsanahay waxa weeyaan in la dhamaantoodna waa dad reer goday ah waa dad aan walaalanahay waa dad aan kolobaba ismudanahay madaxweynuhuna hawaaro maamulka iyaguna hawaaraan dad in culimo ah in dhalinyaro wax barato oo fiican baa nala jooga way aad u fiican yihiin wax hadda aan wax ka sheegno oo dhigi karno mataqaanay cidaas aan dhaliil u yeelinaa oo dhahaynaa garan maayo anigu ilaahay baa leeyahay qof walba laakiin shaqadiisa si hadda dadaalo ma leenahay haddii ay xun yihiin waa wala eri ilaha waa hore la eri ilaha fiicno waxay la joogan weyn kuwa halkan jooga ee maamulka magaalada kuwa degmada jooga iyana way fiican yihiin inkastoo de shakhsiyaadkii caqabad ku ahaa baa jirta shakhsiyaadkiina laga dhex qabtay oo de la dhaafiyay hadda inta joogto waxaan aaminsanahay gudoomiyaha hadda imaaday fadxii labis waa nin dhalinyaro aad u fiican guddigooda fiican yihiin sidoo kale maamulka magaalada dadka aan ka xus karay fiican waxa kamid ah dhalinyarada wax qabad kale ninka baarlamaanka jooga ugaaska waas Cabdullaahi Mukhtaar Aadan Geedan oo halgamaagii weynaa u dhalay oo halgamaagii TPLF ay dishay maxay ninkii mujaahidka u dhalay ninkan waa nin dhalinyaro aad u wanaagsan oo fiican weeyaan
وماسين ياسونا dadka qofku haduu shalay maamulka joogay waxay ahayn dad macnaha taytalka dadka uga faa'iideysanay kuwa hadda joogana waa quran yar wax barto fiican oo wanaagsan weyn kulligoodna dad isku fiican oo maxaa jiray si wada shaqeynayaan bad garan inta soo jirtay qaqadiina ilaahay ma nagu socliyo marka maxay ahayday siina shargareeya dhamaantoodna dib matqaanay beejidka dhan ku la gareeyo ku sii shargareeya laagtana halay hakii loobina muuqaalkana ha noqdo matqaanay mid meel walba gaara maxay ahayday dadku inta badan waxay ka cabaadayaan goday dad badan waxa jira maxaa dhigi jiray qandaraasyada xaq qandaraasya la bixiyay xaq waxaan rabaa inaan kaloon ku celiyo qandaraasyada la bixiyay waxa iga dar waxa deegaanka naga maqan baa ka daran wixii inaga dhaxdeena ah aan isku iman doonaa oo diina waan furkaas ku tuuri doonaa laakiin deegaanka mashaariicaha deegaanka laga bixinayo iyadna aad bay noogu yar yihiin goday markii la yiraahdo way noogu yar yihiin aad bay noogu yar yihiin waxaan leenahay deegaanku mashaariicaha goday ha soo daayo ana goday maadaama ay tahay caasimadda dhabta ahee waxa mad jirtay waxa weeyaan wixii jiray deegaanka naga maqan goday markii la yiraahdo caasimadda dhabta ahee kilka weeyaan jigjiga ku meel gaad baalka loo geeyay wayna iman doontaa laakiin xukuumadda waxaa leeyahay kaalintii shacabka goday way dhiseen laakiin kaalintii dawladda ka maqan waxay tahay macnaha haddii aan khaldanayn hal fooq ah oo ay dawladdu goday ka dhisto oo dab oo caalami ah noqdo hadduu doono ilaahayow muu ahada mid yar iyo mid weyn oo ka ahayn xarumahan leerka xarumahan maxay ahayd teelaga iyo macadka beeraha kale tahay oo kuwana la dhisay xilliga xilliga la dhisay wax cusub wixii garanaya ii sheego wax ma jirto kaalinta dawladda matqanayaan u baahannahay xafiiska maayarka ee galisiyo yaa ugu horeeyaan yaan san aaminsanay macnaha dabaq caadi oo loo dhiso oo dhaho deegaanada iga bilbilowya waxa weeye muhiimaduna waxa ugu muhiimsan kaliya waxa weeyaan wax wada qabsiga weeyaan iyo anagu waxa aan la taaganahay waxa weeyaan war xisbiga iyo xukuumadda iyo madaxweynaha waan taageersanahay xaqanaga aan helo xaqayaga aan helo weeyaan ka goday ahaan ka talomogi ahaan dhabta jirtaan isku sheegayna waa saas wax walba oo deegaanka hadii lagu qaybsado qaybsina qabiil lagu qaybsana qabiil aan ku helo hadii lagu qaybsado dhulaan wax ku helo oo xaq iyo xuquuqda naga maqan aan helo annaguna xisbiga waan garab taaganahay taasna dhibna ma aha dhibaatana ma aha muuqaalkana sii shargaray si uu meel walba u gaaro maxaa jiray BBO adwaartida anagana maxaa jiray nawaarsi oo xaqayagii iyo xuquuqdayadii aan ka helo oo aanu maxaa jiray cidii rabta inay halkan aan tan uga wacno way ina soo request gareyn kartaa ama maxaa badanka labadan isku saaran ee maxay ahayd labada ruux amal ah ee dhaxda ku jirta way taaban kartaa waxaan leeyahay hadii aan ina kulli macnaha live kale kaga hadlaan rabay laakiin inta badan dadka waxay soo weydiinayaan waxa kamid ah dhinaca mashaariicaha hello السلام عليكم عليكم السلام أبوين سيتهاي وكاقضي سو دو ولا سيتهاي ما قررنا واش نكون نيكل بيجلي aad baan ku garanayaa saaxiib seetahay wallahi waan ku fiicnay ma sha Allah halkee joogtaan iyo waayahan loo lagu waayay xageed ka dhacday oo macnaha qurbahaad gashay oo miyaad tariibtan iyo ku waayahan way u kala dhimisay garanaaye maya abgaan waxaan joogaa magaalada wajaale dug wajaale waan gartay maxaa Somaliland tagtay mise xaggan wakaas waa safiir hadee goday gacal u joogaan hayda meesha halkaas aad noo joogtaa halkaas aan ku ogaana insha Allah waan kugu diiwaan gelinaynaa bal ka waran halkaas see lagu yahay oo dadka reer godayga halka see loo dhaqmaa oo dadka deegaanka see halka ku yihiin wallahi abgaan ma sha Allah aad xaaladda loo sugan yahay ganacsigu kala socdaa ma sha Allah la sayd aniga markaas de leefka iyo barnaamijyada soo deynayso iyo soo gelinayso waa mid aad ku taageersanahay markaasna kuwa hambaleynayo dhalinyarta maamulka magaalada goday waxay ka dhinteen isku duubnidoodii isku duuban yihiin iyadu waa dhalinyarta goday weligood isku dubnaayeen balse haddana haddii si aad oo kale sameyn lahaayeen alxamdulillah heer baan gaari lahayn maanta oo waxaan dawladda ka cabsanayno xukuumadda naga sareysa federaalka ama haday noqoto kilkeena ka cabsanayno haday mashruucii waxa sheegayso oo kale hadan ka dhammaan isku dubnaan lahayn ka wada hadleen heer baan gaari lahayn maanta laga bilaabo taana waan kugu soconaa hore u soco karabkaaga midig baan taaganahay markastana de waan ku hambaleynaynaa walaal
aad baad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol walba waan ku hambalyeynaya waad mahadsan tahay sida fiican aad mataqaanaa noola wadaagtay iyo sida fiican aad uga hadashayba insha aad baan kugu insha salaamayaa allah mar way adiguna imaan doontaa mar way imaan doontaa wajaale insha allah waan waan ku kugu iman soo doonaa haddii dhaweynaya waan ilaahay ku kugu farta jecel waan qaadaya ku iman doonaa waan ku iman doonaa adiga reer Togo Jaale iyo dhammaan dadka halka jooga waan salaamayaa aad baan ku salaamayaa salaam baan ku saaray saaxiib boqolkiiba boqol waan ku soo qaban doonaa insha anigana allah sidaas oo wanaagsan kale laabteeda ku taashaa saaxiib waan ku soo aad dhaweynayaa iyo aad hal aad maalin iimo waan ku farta qaade maalin waayahay iimo waan saaxiib ku waa farta qaade إن شاء الله وانكوي من دون صاحب إن شاء الله وانكوي من دون صاحب أدي أد بكون سلام يا أد بكون سلام يا haya walaalkay waa mahadsan tahay dadka hore u soo soco garabkaaga midig إن baan شاء الله taaganahay marka tihiin iyo hoo هي waan kula garab taaganahay هي ولا معنا هي إن شاء الله قلبي أنك سلام haya bye bye walaalkay waan ku salaamayaa هي ولا وما سيها عبد الرئيس رئاسي لو دي كما هي كأوي تلي ما تخنا يعني سوق تبل عن سؤاله يبل أفكار أنا بدأ بدي أني نجوي تهي أو أذكر بتشوفنا تهي هذيك يو نيك اللي تري أحمد عبد الويس يو أصحابي حاجة شوفتي أحمد دق يو ما هي بل عن سوق قبتي بل إن أوي بل يان سوق بنا بل تلاقي تصالح يان نسيه أو معي هذه كذا يراهن أما كا إن يقولي أهان كم أنا هيا تلالا سنين هيا تلالا قاطع إن وحلي تري إن ربالي يو نصيبه نقدر ده عيارته أنا أصلا معناها إن توشية ده حبضة إسكت توشية معاك التيم إسكت باتين لبديني متقناي دي إن حبض ممكن التيم رج ولا لا باتين رج صاحبة باتين رجل ما درا تيم لا ممكن تشتاني حبضة هوصل يقول وحلي تري دي لغة قوة شكيسة دي إن aad iyo aad baan dhammaantiin ba idin salaamayaa waxaan doonaynaa inaan bal adwiila idhaahdo maxay ahayd aan maxaan ku yar nasanaa oo jeclaan lahayd inaan ku nasano ma hees maxay ahayd heestii xisbiga ah maxay ahayd maayasiga guday loo qaaday mid ka mid a macnaha maxaan jeclaan lahaydeen inaan ku nasano bal inta yaree barnaamijkan ka nasanayno bal noo sheega maxaad fikirkiina jeclaan lahaydeen kumaan soo qabanaa kumaa mataqaanaa jecel inaan nala wadaago afkaartiisa iyo fikirkiisa iyo maxay ahayd wixii uu qabo live kana sii share gareeya barnaamijka sii share gareeya waxaan doonaynaa inuu meelo badan gaadho yaan doonaynaa waraa deefow waan ku salaamaya taliya deef maraykanka saa u tagtayba laguma haye saaxiib aad baan kuu salaamayaa mudane aad baan kuu salaamayaa boqolkiiba boqol waxa aan ka hadlayna waxa weeyaan waa waxa aan ka hadlayna ee jiro waxa weeyaan cidnana ma dhaliilayno cidnana target kama dhiganayno cidnana maxay ahayd gaar nooma aha cidnana maxay ahayd ujeeddo gaar kama lihi waxa weeyaan baahida jirta iyo caqabadaha jira iyo waxa iyaga inaan helo un bas xaq iyo xuquuqda aan xukuumadda ku leenahay aan hela kaliya weeyaan iyadoon dhib lahayn daliil lahayn madaxweynuhu waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay ciddii wax u sheegtay ee maxay ahayd codsi usoo jeesatay inuu maxay ahayd inuu caqabadiisa iyo baahida jirta wax ka qaban bay la tahay oo waan ogahay weliba la tahay waan ogahay mustafa inuu wax ka qaban boqolkiiba boqol deefo heesihii waa inaan youtube ka tagno laakiin maxay ahayd heesihii guday loo qaaday waan kuwan gelin doonaa insha allah maxay ahayd soo intaas haddii intaan barnaamijkeena ka bixin maxaa jeclaan lahaydeen inaanu ka hadalno oo haysan iyar aan kusoo noqdo hadda xaggi dadka inta badan wax laga hadlayo waxa weeyaan qandaraasyada anu waxaan leeyahay hawsha qandaraasyada horta intan qaadatay qandaraasyada haddii ay reegudayihiin allah ku asturo haddii aysan reeguday ahayn oo qaybo kale ku jiraanna ilaahay maxay ahayd iyana allah ku asturo laakiin waxaan leeyahay waa cadaalad darro ay sameeyeen guddiga qandaraasyada maamulka magaalada guday haddii ay ku jirin weeyaan dadka reer guday oo baahan war qandaraasyada inay helaan bay ahayd dadka reer gudayey haddii ay heleenna way ku mahadsan yihiin maamulkaygu iyo guddiga qandaraasyada hadday saa u qaybiyeen way ku mahadsan yihiin haddiise uu shaqsi aan reer guday ahayn ku jiro waa khalad waana cadaalad darro waanan ambaaraynaynaa tan labaad inta badan markaad fiiriso maxay ahayday biidhadhka iyo dukumentiyada la xaraysanayay iyo maxay ahayday dukumentiga shirkaduhu xaraysanayeen waxaa ku jira shirkado badan oo shalayto qadaraaskii sanadka hore qaatay haddii uu yahay shaqsigii isaga ahaa ee shalayta qadaraaska qaatay waa cadaalad darro inta uu shaqsi kale oo walaalkii aad joogo inta uu shaqsi kale oo walaalkii aad joogo inuu isagii qaato waa cadaalad darro weyn muhiimadda background-iga waxba naf ma laha meeshaad ku gashaba macnaha waxa weeyaan keliya inuu baaqaa xukuumadda iyo xisbiga gaadhay background naf wax kale aan ku socdo qodobkaas aga dhex gelin waxa weeyaan laakiin shakhsiyaad waxaa la ii sheegayaa in dukumentiga
ama liisansiga ama maxay ahayd biidka aduu ay shirkadooda xareystay magaca shirkadda ah shalay hadduu asaga lahaa maanta mid kale walaalkii uga faa'iidey ninkaas wuu mahadsan yahay ninkaasoo kaleeto hadduu jiro wuu mahadsan yahay ninka intuu soo qaaday sharciga shirkadiisa walaalkii oo baahan ama walaalkii oo mataqaanaa dee garab baahan intuu ku wareejiyey yidhi warramada ku tartan gosh ninkaasoo kaleeto aad buu mahadsan yahay waana bil aadam ah oo xalaal ah laakiin kii shalay asagoo bidhkiisii ku tartamay oo wax ku helay maantana wax ku raadsanaya waa khalaad qodob labaad baan rabaa inaan ka hadlo qadaraaska in looga faa'iidaya fiican dadka tabarta daran iyo dadkan waxba haysanin laakiin haddii looga faa'iideeyey ka warrama qadaraaska kuwa wax haystay iyo kuwa dhaqaale haystay loo waxeeyo midna waa cadaalad darro hal arrin oo raba inaan maamulka magaalada jigjiga la iga soo sheego oo qandaraasada ay ku dhaqmaan baa inii sheego waddo cowlstone ah baa la samaynayaa ama waddo yaa la samaynayaa 10 dhalinyaro ah oo camal la-aan oo baagamundo ah baa loo yeedhi waa la isku xidhi qabsadaa la dhihi ka shaqaysta waana wax fiican marka dhalinyarada xuguday camal la-aanta ee mataqaanaa kuwan ururka dhalinyarada oo kaleeto ee mataqaanaa magaalada ka shaqaysanaya magaalada jooga dhalinyarada ah kuwaasoo kaleeto in looga faa'iideeyaa muhiim ah kuwaasoo kaleeto in looga faa'iideeyaa muhiim ah ay ahayd laakiin qandaraasadaha nin hantiilaa oo lacag haysto oo dee taajiraho maxay ahayday wax haysto oo dee dharigsan haddii la dhaho adiga ku darso waa qalad weyn kaleeto qandaraasyada qudhigooda in saami loogu qaybiyo ma xumo in la yidhaahdo maanta ree hebel aan muhiimadu siino maanta ninkaas oo ree hebel ahoo aan siino maanta in la yidhahdaa fiican maxay ahayday in la yidhahdaa fiican ninkaas aan siino war ninkaa quruxsigee miskiinkiia walaalkeena aan siino in la yidhahdo fiicanta haddii wax lagu tabin in la yidhaahdo war quruxsigoodu waa laban tahay kuwa kaa daran baa jiray joog anna aan joogadan laakiin hadda dadka qandaraasada qaatay waxay u badan yihiin dad wax haysta oo dhaqaale haysta laakiin dadka wax haysta maadaama ay u badan yihiin in lagu daro ma ahayne waxay ahayd in dadkaas dadkan waxba haysan in la siiyo qandaraasada hase yeeshee qushigeede kuwa qandaraasada helayow ilahay horta idinku asturo ilaahayna xilka aad qaadeen waa xil adaga ilahay idinku asturo wadnimo yahow si wadannima wax u dhisa magaca idinka hadho ilmaha aad ka tegaysaan waddada uu berri mari doono iyo iskuulka wax ku baran doono iyo maxaa dhihi jiray isbitaalka la geyn doono iyo maxay ahayday goobta lagu daweyn doono iyo maxay ahayday waxa wax lagu qaban doono berrinta ka maalin waa carruurtiina weyn haddii qandaraaskii shalay aad qaadatay uu burburo adina dhaliil bay kugu tahay ilmahadan dhaliil bay kugu tahay risi qaadan oo xaaraan bu noqon oo durbo laakiin haddaad wax tayal dhisto macal ilmahaaga dambe magac u noqona waxaa la dhihi qandaraaskan aabbahaa baa dhisay walle aabbaha wadani buu ahaa baa nin buu ahaa dhismahan aabbahaa baa dhisay iskuulka intaas ilma wax ku barato aabbahaa waa xil hase yeeshee waxaan kula dadaalmayaa in horta wax tayal dhistaan waxay ila tahay macnaha qandaraasada in macnaha dadka dhisayow aad u dhistaan nidaam cadaalad oo shilinka fiirinine aad fiirisaan wallaahi baan ku dhaartay wallaahi tumba wallaahi baan ku dhaartay kii qandaraas intii la siiyo waxun iyow intaan ka hari mayna waan soo sawirin arban bulshada soo bandhigana dhahaynaa hebel hebel weyn waa hebel hebel baan dhahaynaa waa hebel hebel kii qandaraas xun oo dhisan kii qandaraas fiican oo wax macnaha dhismo fiican oo mashruuc fiican dhisan waxaan dhahaynaa un wallahi ninkaan raga weeyaan aad buuna u mahadsan yahay ninkaas khayr allaha siiyo u ducayna maxay ahayd axmed ugaas waad iga maqnayd xuduudada gobolka waan ka hadlay oo barnaamijka qaybta hore yaan weliba qaybta dhexaan kusoo qaatay gobolka waan ka hadlay markii la yidhaahdo saami qaybsigana waan ka hadlay allaaf waan ku dulmannahay caadadaan ku dulmannahay waxaan ku dulmannahay dhanaan baan ku dulmannahay ceel weynaan ku dulmannahay dhammaan waan ku dulmannahay cadadloo kaleeto ugaas haddii aan kugu celiyo waad iga maqnayd cadadloo kaleeto haddii aan kugu celiyo ballantu waxay ahayd guddoomiyaha reerkii qaatay inuu labada xildhibaan ay reerka la qaataan laakiin nimankii walaaladeen ahaa ilmaadeerteen ahaa tiidii macnaha laysan samaynay ballantii xildhibaanadiina hal bal loo qabsaa guddoomiyihina waa iyaga doorkaasi waxaan aad iyo aad ugu rajoweynahay ama aan leenahay xukuumadda aan gaarsiinahay in haddii ay
marka walaalada ama gudoomiyaha hadii qaataan labada xildhibaan ee degmada ka soo baxaysa inay banaanka maraan haddii ay labada xildhibaan qaataan inay gudoomiyaha degmada banaanka maraan qalaafo oo kaleeto inta qabale ee beeshu degan tahay ama reeruhu degan yihiin way ogtahay waa dadka dhan way ogyihiin majority baan ka nahay laba xafiis inaan ku yeelano mid arrimo siyaasadeed iyo maaliyad waa khalad war haddaan gudoomiyaha ka weynaa gudoomiye ku-xigeenka helaa sharci ah runta markaas u sheegno weyn qalaafo oo kaleeto inaan waxnaa ka helno dhanaan wixii aan ku leenahay qabaliyow ah inaanu ka helno weliba xildhibaan aan ku yeelno dhanaan ceel weyne qabaliyow baan ku leenahay ka soo baxnaa madaxxafiisyadaan ku leenahay inaanu xildhibaan ka helno weyn waana arrin jiroo sharci weyn waastan kayre wixii nagala jiray ee dhabay xuquuqda jirta inaanu ka helno haddii madaxxafiisyadaan ku leenahay haddii maamul aan ku leenahay inaanu dee dhulka aan la kala naga yeelay qabaliyaasha inaanu xildhibaanadooda helno weyn cidna dulmi ma aha annagu wixii nalagu leeyahay laga qaato wixii annaga leenahay aan helno shalay gabadh reecay weynaa baa guday xildhibaanad ka ahaydoo ayaan nimaca shaqadan gabadhaas xaggee waayey aan ilaahay baan ku dhariyo ay mataqaanaa guday xaggee wax kaga yeelatay xoog iyo qasab baa lagu keenay qasab iyo xoog baa lagu keenay oo layidhi hana ka noqoto xildhibaanad maamulka magaalada ka soo baxaysa annagu xoogna marna qasab marna waxaa naga aan helno si cadaalad aan u helno waxaa naga maqan aan helno wasiiraan ku dulmannahay wasiir ku-xigeenaan ku dulmannahay agaasimiyo baan ku dulmannahay waaxiyiga xafiisyada deegaan ku dulmannahay waxba kuma hayna meesha halkaasaan taagannahay hal wasiir laba ku-xigeen haddii la yidhahdo tolmoganimana nama qabato haddii la yidhaahdo macnaha goday iyo dadka eriyaa deganna nama qabato cadaaladna ma aha agaasinka guud ee aan beeshu leedahay waxaa weeyaan baa marayn 2 miya mise 3 ariyaa dhaafin kara hore yaa dhaafin kara haddii aad sii hadashana magacooda ii sheegi intay ka badan baan ahay wasiir ku-xigeen 2 baan leenahay labadaan waa goday haddii la yidhahdo ama haddii la yidhahdo tolmogabar haddii la yidhahdo labadaan baan leenahay marka annagu dad waxood ma rabno annagu wax iyaga inaanu xukuumadda ka helno xisbiga waan taageersannahay mustaf baan taageersannahay xukuumadda talada haysan taageersannahay maamulka hadda joogaan taageersannahay wax oo dhan waan taageersannahay tunkaanu ku wadana war macal doorashada idinkaan idinku shubaynaaye xaqa annagu waan helno xisbiyow khaladna ma aha dhaliilla ma aha ceebna ma aha cidnana waxba ma yeelin tulamoguhu wixiisa ha helo reer goday wuxuudaa helaan dadka gobolka shabeelle degan wuxuudaa helaan goday wixiina lagu leeyahay ciddii wax nagu haysateen mataqaanaa tulamogu waynu ku leenahay banaankaa soo istaagto mataqaanaa hanuula tartanto oo ha soo waxayso runta markaas sheegno weyn laakiin kaagiina kuma ogoli kaygiina waan kula yeelana mataqaanaa kaadiina waan kula yeelana kayna kuma ogoli ay honamdii taana ma yeelayno wax la qabtana ma ahadii mana ogolin sii shargaraya muuqaalkana si ay meel walba u gaadho mataqaanaa cid walba madaxweynaha ha gaadhay mustafow in fiican baa tahay hal jaamacada axmed cabdiwiis iyo waxay ahayn raasin sulub iyo axmed deeq iyo anigi iyo kuwii lahaa cabdaad hal jaamacada noogu daray magaadhama magaciisa waxaynan naasir dhiyaab baa hor reer goday mataqaanaa ninkii saa ku lahaa kulligaanaa saa ku leh war goday waxaan u bixinaynaa mustafa maxamed cumar oo reer jiiso waan u baxsanaynaa oo waxaan doonaa baxsanaynaa walaal xuquuqdan oo ka hel adiga xukuumadda adiga talada haysa in fiican baa tahay wax badan baad qabatay isbedel badan baad keentay weliba goday aad baan kuu taageersanaa salaam baan kuu saaraynaa aad baan weliba salaam xoog badan baan kuu saarnaa mudan madaxweyne keliya waxaan ku leenahay un tolomaguhu wixiisa ha helo bas intaa un weyaan waa muhiimaddu nin walba wixiisa ha helo annaguna waxa annaga aan helno annagu waxa annaga aan helno aanu cindana ma dulminayno cindana ma waxaynayno dadka goday waa magaalada wada noolaanshaha lama kala laba magaalo soomaaliyeed intaan tolomago dhaafinay oon ogaadeen dhaafinay oo aanu dhaafinay absame iyo daaro inta dhaafinay baan soomaali nidhi muqdisho ka yimaada iyo hargeysa ka yimaada iyo meel kasta ka yimaada goday waa ismantaydii magaalada wada noolaansho cid walbaa goday ku nool amxaaraanu soo dhaweynaynaa oonu darisnaha oo aanu
oramo sidoo kale tikre isma cidna cid laguma kala awood badno waa la isjecel yahay magaalada sidaasa inay waxeedii dhalinyaradeedii wax inay wax ka helaan deegaanka u bangaalada madaxweyne dhagax buur kuwa ka yimaada iyo kuwa jikmid iyo kuwa shinila ka yimaado dhulbeereed iyo banan iyo aan siinayna aan soo dhaweynaa garab baan nahay gacdo aan soo dhaweynaa waanana la shaqaynaynaa waxay u baahan yihiin waan u qabanaynaa wixii kaalinta annaga taageerada shacabka aan siinaynaa laakiin xaqaana oonan hella bas wax kale kama hadlaynay bas kaanaga wax bartay meel u qalanta hala geeyo saamiga deegaanka aan ku leenahayna aan ka helno un bis inta ugu muhiimsan ee rabeynan waxayna waaba intaaba xuduudada markii la yidhahdana dhulka sohdimo wuu lahaan jiray shabeelle iyo qorraxi meel baa xuduud u ahayd oo la garanayaa afdheer iyo shabeellena meel baa u ahayd xuduudadii in la saxaan baa muhiim haddana oo la hagaajiyo oo dhulka meeshu wax mari jiray la waxeeyo waa la garanayaa g p s baa jira dhulka mataqaanaa dad taariikhyahanaa jira waa la garanayaa cabirka meel walba taaka meeshay maraysa waa la garanayaa cabirka hala kala hagaajiyo soodimaa la kala waxeeyo intaa kadib waxyaabaha kale ee raba inaan ku sii nuuxnuucsado waxaa ka mid ah waxaa jirta 15,000 ilaa 20,000 oo dhalinyaro oo mataqaanaa oo reebgada iyo how digriya baa jirta 10,000 oo master jirta 500 oo dhalinyaro PhD aa leeyihiin oo reebgada oo iska wada fadhiya dadkaas iyaga ama boosaska loo qalman hala geeyo war haddii qabiil wax lagu qaybina qabiilnimadkooda lagu qaybiyo oo waxa ay qabiil saaminimo u lahayn lagu geeyo haddii aqoon waxay neenayaan graduation iyo qabiil iyo nidaam kale loo isticmaalay aqoontooda lagu geeyo guday dhalinyaradu way jabaysaa wala isdul saaran wallahi ilaahay bay iga sareeyay saaka wallahi bay mashii saaka 4 nin oo master ah yaan isku meel ka sharaabin iyo matana aanu ka aan jamaaqi wax meel kale ka 4 nin oo master ah meel fadhiyo shaqalaan marka waxa weeyaan dhalinyaradanadu waxa hesho oo odayaasha deegaanka xuquuqda yeelan oo maxay ahayd cid walba oo joogta oo hadda annaga naga mid waxaan xuquuqdan aan helo oo dhulkan naga maqan ee suudin naga maqnaado ama maxay ahayd naga maqnaado naga maqnaado tinni Chinese kala naga maqnaado ama xoogan naga haystay aan loo soo celiyo oo xildhibaanada iyadu ha noqdaan xildhibaanada goday dhaafsan oo ummadaha kale wax ku leenahay war khalaaf waxaan ku leenahay ka helo oo nidaam dastuuri aan ku helo war dhanaan waxaan ku leenahay ka helo nidaam dastuuri aan ka helo war cilmiga waxaan ku leenahay ka helo nidaam dastuuri aan ka helo war laas dhankii waxaan ku leenahay ka helo war khaladna ma aha dhibaatana ma yahay waxaan nagu aan xillaan reebsanayeen waan helina insha Allah wada sharci aan u marayna muuqaalkan inaad sii shargareysaan yani kula talinaya dhamaantiin idinku maasan waxay la tahay macnaha hadalkiiban aad iskugu dheeraynay maxay ahayd waan sii hadli lahaa oo weli aad hadal badan baa hayay laakiin maadaama mataqaanaa ay waqtigiina isku kulyahay in asxaabtuna laga yaabo mataqaanaa internet daatada wadan kale iska ciriiri iska tahay dad badan waxaa jira la socon karin muuqaalada faraha badan ee soo gelgelinayno marka insha Allah kadib muuqaalka waan joogteyn doonaa muuqaalka inaad sii shargareysaan isku daya howlaha magaalada ka socdana waa kuwo dardargelin u baahan shacab ahaan kaalinta dawladdu waxay qabatay inuu ku shacab ahaan aan lahaansho muujino shacabka daawanaya iyo kuwa mataqaanaa muuqaalkan arki doona iyo cid walba oo aan xiriir leenahay waxaan kula talinaa inay muuqaalka sii shargareeyaan in maxaa la dhihi jiray ay one on show or saacado show one on taliya in muuqaalka la sii shargareeyo dawladdu haddii ay iskuul loo dhisto inaan ilaashanaa muhiim ah war haddii goob caafimaad lainoo dhiso inaan ilaashanaa muhiim ah haddii lainoo dhiso maxaa la dhihi jiray lainoo dhiso cilbiyo lainoo qodo inaan ilaashanaa muhiim ah dadkan dawladdu ayadoo way dhisaysaa mooyeen lahaanshaha daac shacabku ka imanaya inaanu kaalintii shacabku lahaa aanu maxay ahayday aanu in kaalintii shacabku lahaa aanu kaga qayb qaadanaa muhiim ah waana ka qayb qaadanaa insha Allah aan ku laabana ku dhigay marka warbixinteeda maanta intaas ku saabsaneyd waan kulligiinba
maxay ahayd waan salaamayaa gidiin oo dhan waan salaamayaa dhammaantiin salaanta islaamka ku salaamayaa sida quruxda badan ee muuqaalka nala wadaagtiin siina shargareey muuqaalka meel ban ha gaaro rayso xagee jirtay maanta muuqaalkaada kor codkaada kor u qabaday galada xagee ka maqlay taliya maanta dhan baan la rayso maxay ahayd waan xabiibtay taliya hayla yaabina aad baan u xabiibtay oo hadal dheer baan galay حاجة هوش وصل الغرز وحويان قدر سوا إن جودي قدر السنة وحلاهي هدي عدالة فشلنا أو فشلنا هدينا فرنا لنا ريال فرع خيرنا الله ينسيه لأن الحلقة هذه عدة اللي قادة اللي يجيب الليل وسكيماني يعني ليش نقدر قاطع ده أو ليش محي أيدي إن نقدر قاطع يعني السلام يا كلين سلام سلام كان كل سلامية وين تشعلهاي إن من يضل بيني واحد عشان تشعلهاي أنا واحد أنا هلا تشعلهاي الله واحد أنا عشان تشعل سوي إيش إنه هلو تشعليه يلا أنا واحد أنا هالشيء تعش كل يوم واحد تشعلهاي أنا واحد من هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.